kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan oo caawa barnaamijkeena ku soo qaadi doono waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay isbahaysiga badbaado qaran oo looga dhawaaqay magaalada Muqdisho iyo Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur xubnay hogaaminayaan oo weerar culus ku qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya haddaba waxaa idin soo gudbin doona warar ku aadan xildhibaan Shariif Sheekh Axmed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo wacd ku maray inay ka hortagi doonaan sharci darrada wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddaba waxaa idin la wadaagi doonaa talaabada uu madaxweyne Xasan Sheekh uu qaaday oo ay ku yimaadeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Shariif Sheekh Axmed iyo isbahaysigan looga dhawaaqay magaalada Muqdisho ee loogu magac daray isbahaysiga badbaado qaran iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wadnaha farta ku hayo haddaba waxaa la wadaagi doonaa warar iyo macluumaad culus oo ku aadan weerarka ay ku qaadeen madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo arrimo badan oo ay ka dhigayeen xilli ay sheegeen in dalka badbaado u baahan yahay barnaamijkeena ayaanu ku soo qaadi doonaa qodobada kale waxaa kamid noqon doona faafaahinaadii ugu dambeeyay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ansixiyay dhismaha guddiga doorashooyinka qaranka kuwaasi oo horseedi doono in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah iyo dhismaha guddigan oo si weyn ay u diidiyeen mucaaradka dowladda Xasan Sheekh haddaba waxaa la wadaagi doona filla Soomaaliya oo lacag ku faraqday baarlamaanka iyo arintan oo si degdeg ah baarlamaanka lagu mariyay maxaa ka jira in filla Soomaaliya ay lacag ay ku gurtay guddoonka baarlamaanka si loo ansixiyo qodobka weyn ee ansixinta dhismaha guddiga doorashooyinka guuxoogan oo arintan ka dhashay iyo xildhibaano badan oo ku hor yimaaday ayaanu barnaamijkeena ku soo qaadi doonaa sidoo kale waxaa la wadaagi doona wararkeena ku daawo doontaan waxaa kamid noqon doono wararkii ugu dambeeyay nisa oo Muqdisho ku qabatay xubin sare oo ka tirsan al-shabaab haddaba magaca xubintan iyo waxa uu magaalada Muqdisho u joogay ayaanu idiin soo gudbin doonaa al-shabaab oo jabkii ugu cusraa lagu gaarsiiyay shabeellada hoose wararkaas iyo kuwa kale ayaad ku daawo doontaan barnaamijkeena caawa waa 26 November aan ilaadi raali ahaado waa 16 November 2024 wararkeena ayaanu guda geli doonaa hasaatee marka hore daawadayaal inta uu guda gelin wararkeena waxaad ku codsanayna inaad nagala qayb qaataan faafinta wararkan idinkoo muuqaalka like dhahayo sidoo kale tan subscribe saaranayo barteena YouTube-ka mahadsanidin aan ku bilaawno wararkeena caawa isla markaasina ugu horeysiino isbahaysi culus oo ka dhanaa madaxweyne Xasan Sheekh oo isla markaasina loogu magac daray badbaado qaran oo looga dhawaaqay magaalada Muqdisho madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo siyaasiga caanka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo maanta si wada jira war-saxaafadeed ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa si weyn ugu hor yimid talaabo uu qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud talaabadaasi oo xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya uu ku mariyay qorshe uu doonayo in dalka uu kaga hirgeliyo doorasho qof iyo cod madaxweynaha arintan ayaa timaaday kadib markii ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka baarlamaanka Soomaaliya Shariif oo madasha ka hadlay ayaa markii hore waxa uu su'aal ka keenay qorshaha filla Soomaaliya ee ku aadan qabashada doorasho qof iyo cod taasi oo ay ka taagan tahay dood xooggan maadaama ay diidayeen maamulada Jubbaland Puntland iyo mucaaradka sidee lagu gaari karaa qof iyo cod magaaladan oo aynu maanta joogno oo caasimadda oo ay dawladdu ku shaqeyso kama dhici karto doorasho qof iyo cod dadka inta ay baxaan si xur ah oo xalaal ah ma u dhiiban karaan codkooda su'aashaasi waxa ay hortaalaa madaxweynaha ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in la cuuriyamiyo shaqadii baarlamaanka dalka isla markaasina shuruucda hadda la meel marinayo oo ugu horeeyo midka guddiga doorashooyinka loo maray hanaan qaldan oo aan sax ahayn sidoo hadalku u dhigay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed baarlamaanka afka ayaa looga dhagay waana hay'adii koowaad ee wax dooraneysay haddii shaki uu soo galo oo xubnaha codeeyay ma dhan yihiin mise ma dhama arintaasi ogaada waa mid aad u culus sharciyadan hadda la ansixiyay ee nidaamka loo maray dhammaantoodba waa kuwa qaldan oo wada qardajeexa uu la qaaday madaxweyne Xasan Sheekh oo waxay ka dhasheen cawaaqibkeedu isaga uu qaadan doono ayuu yiri madaxweyne Shariif dhankiisa xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo hadalka qaatay ayaa shaaca ka qaatay in baarlamaanka hadda jiro uu yahay kii ugu liita abad ee dalka soo maray meesha uu joogo baarlamaankii ugu xumaa ayuuna magaciisa huwan yahay ayuu yiri waxa uu ka liitaa midkii militariga waxaana uu sidoo kale xildhibaan Cabdiraxmaan uu eedan culus u jeediyay guddoonka sare ee labada gole runtii waa ayaan darweyn in baarlamaanka labadiisa aqal ay noqdaan meel ka liidata baarlamaankii xukunkii militariga oo ay lahayd maanta waxaa timid 173 xildhibaan gacanta ay wada taageen qof diida ma leh qof ka aamusan ma leh ayuu yiri xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame bal sidee baan u qaadan doonaa warkaas
in intaasoo xildhibaano ay isku raacaan wax qaldan ma ogolaan doono in guddoonka baarlamaanka uu qardajeex uu la maro baarlamaanka dalka ayuu yidhi xildhibaankani. sidoo kale waxa uu sii raaciyay golihii shacabku waxa uu noqday meel lagu sacabtumo xukunka hadda joogo waana lagu gulwadeeyaa. sidoo kale waxaynu ognahay in xildhibaanada jooga aysan ka badnayn 120 xildhibaan una badan yihiin wasiiro ayuu sidoo kale hadalkiisa ku daray xildhibaankani. waxa uu si adag uu hoosta uga xariiqay in ansixinta dhismaha guddiga doorashooyinku oo uu khilaafsan yahay nidaamka federaalka ee dalka, isagoo ku dooday in dowlad goboleedyada ka jira dalka ay u madax bannaan yihiin doorashooyinkooda gaarka ah. sidoo kale xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa wacad ku maray inay hor istaagi doonaan sharci darrada oo ay wado dowladda madaxweyne xasan sheekh. xildhibaanka iyo sidoo kale madaxweyne hore Shariif ayaa waxa garba taagnaa marka ay hadalkan ay jeedinayeen xubno ku xisbi ah oo xildhibaano iyo siyaasiyiin kale oo mucaarad u badan kuwaasi oo si wadajir ugu dhawaaqay isbahaysiga badbaado qaran oo ka dhana xasan sheekh. haddaba badbaadada qaran ee labaad ee looga dhawaaqay Muqdisho ma tahay mid hor istaagi karto madaxweyne xasan sheekh maxamuud? aragtida hoos noogu reeb daawade. dhinaca kale isla warbixin arintan oo kale la xidhiidha haddaan fiirino xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan wadajir ku yeeshay magaalada Muqdisho waxay meel mariyeen xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo soohdimaha sida uu ku dhawaaqay natiijada gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe. waxaa xeerkan ogolaaday dhammaan xildhibaanada iyo senatarada xaadiray kulanka uu gaarayay ilaa 173 mudane, mana jiro xildhibaan diiday ama ka aamusay. aan isdhegeysano natiijada ayaanu ku dhawaaqeynaa. kooramku waxa uu ahaa 173 mudane, cid ka aamusay ma jirto, cid diidana ma jirto, dhammaan waxa ay ku codeeyeen wada ogol. sidaas darteed waa ansax xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ayuu yiri gudoomiyaha golaha shacabka. intaasi kadib xildhibaanada ayaa u guda galay akhrinta labaad ee xeerka ururada xisbiyada jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ee doorashada dadweynaha ka qayb galaya si loo helo xeer qeexaya oo baarlamaanku uu codeeyay. xildhibaanada baarlamaanka uu horay dalab u hordhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dardar waxa uu ku socdaa shaqada ay hayaan, waxaana qorshaha ugu weyn uu yahay hirgelinta doorasho qof iyo cod ah oo ay go'aamiyeen xubnaha golaha wadatashiga qaran. qorshahan ayaa dhaliyay xiisad xooggan kadib markii ay ka biyadiideen maamulada Jubbaland iyo Puntland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka soo horjeedo dowladda dhexe ee Soomaaliya. si kastaba ha noqotee waxaa laga warsugayaa talaabada uu qaado baarlamaanka Soomaaliya ee leh go'aanka ugu dambeeyo ee lagu jiheynayo doorashooyinka soo socda ee dalka kadib markii ay hadda bilaabeen dhabihii loo mar lahaa arrintaas, iyadoo dhinaca kaleetana ay farqaha haystaan siyaasiyiinta mucaaradka oo arrintaasi si adag kaga soo horjeedaan. arrintaas maxaa ku biirinaysaa daawade isheesiga ka taagan filla Soomaaliya iyo in ay xildhibaanada baarlamaanka maanta ansixiyeen qodobka ka sii dari kara xiisada mucaaradka iyo dowladda federaalka. dhinaca kale al-shabaab waxaa Muqdisho looga qabtay xubin sare oo ka tirsan kooxdaasi kadib hay'adda sirdoonka oo howlgal ku qabatay. ciidamada nabad sugidda oo maanta howlgal ka sameeyay magaalada Muqdisho ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen 2 xubnood oo muhiim ah oo ka tirsan kooxda argagixisada ee sida lagu shaaciyay war-saxaafadeed ka soo baxay hay'adda NISA. 2 xubnood oo sawirradooda la soo bandhigay ayaa lagu kala magacaabaa Kooshin Maxamuud Axmed iyo Kayse Faarax Xasan oo ku magac dheer Axmed Yare sida lagu sheegay war ka soo baxay NISA. Kooshin ayaa kooxda u qaabilsanaa isbitaalada iyo bukaanada la keeno magaalada Muqdisho, halka Kaysena lagu eedeeyay in uu dhakhtar u shaqeynaya al-shabaab uu ahaa una qaabilsanaa daweynta bukaanada jooga degmada Jilib. sidoo kale tana waxa ay NISA ay sheegtay in uu adeer u yahay horjoogaha al-shabaab u qaabilsan arrimaha siyaasadda ee Xuseen Fiido. raggan waxaa lagu soo qabtay howlgal qorsheysan sida ay hay'adda ay shaacisay. dhinaca kale tana weerar kale oo jab culus uu gaarsiiyay al-shabaab waxa uu ka dhacay Shabeellada Hoose. faafayn dheer ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay howlgal culus oo lagu beegsaday kooxda al-shabaab kaasi oo ka dhacay aagga degmada Owdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose ee Soomaaliya. howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa si gaar u sameeyay ururka 175aad guutada 17aad ee Gorgor iyo midka 146aad guutada 14aad ee Oktoobar, waxaana ay gaareen deegaanka Jowhar Owdheegle oo ay ku dhuumaaleysanayeen xubnaha shabaab. waxaa xubnahan loogu daatay godadkooda iyadoo lagu dilay xubno sarsare oo maleeshiyada ka tirsan iyo dagaalyahano kale. aragtida qodobkaasi ku aadan oo soo wararkeena maanta waa naga tan